ودع الكلام عن الرجال لعالم عدل تقي صادق رباني وصل اللسان عن الشتائم والأذى كم باللسان يزف للنيران واحذر تسر بزلة من مسلم وقل المحامد للذي عافاني. waxaad tidhi doctor Faysal wuxuu yidhi Abdullahi Sheekh Abdullahi Barbaraawi baa yidhi waa yuxshar naasu duha doctor Faysal wuxuu yidhi ama duhaha la soo xaadiriyo ama habeen ha la soo xaadiriyo haddaan ku wadaado bal ka waran Sheekh Abdullahi Barbaraawi hadalkaasi waa been anigu habeen ma oranay casran baan yidhi waxaan ku yidhi maxay iska kiin bedelay masalada iska kaaya bedeshay oo dadka ma u sheega haaya u sheeg wallahi baanay sidaa ahayn waad noogtay inaan sidaa ahayn لكن قار كلام مقيقا هذا يسوق قران وإن عدتم عدنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حلقة وحنو قارية إن شاء الله تعالى إلى الاستلتاقو حجلت أما مقطع ساعدية 3 دقيقة سعونيي oo Sheekh Abdullahi Barbaraawi uu duubay waanahu alayhi qawmun akharun oo runtii aad looga shaqeeyay qaradka iyo ujeedada sida ka muuqatana uu ahaa isqaat shakhsiyya shakhsiyadii munaadarada dalbatay in la isku dayo in la isqaatiyo hadalka sida ka muuqata waxa laga yaabaa muddo saacadood ama 2 saacadood ku dhow in la hadlayay uu hadlayay Sheekh Abdullahi Barbaraawi iyo cid ugu kaalmaysay laakiin charchar badan ka bacdi la soo gaarsiiyay saacad iyo 3 daqiiqo warkiisa markaan dhuuxay Sheekh Abdullahi Barbaraawi 5 qodob ku dul wareegay al-igraq fi at-tafasil wal-juz'iyat laysa min 'adati تأصيل كي أصول شيء للضبطية أي كم مهم سن هذا الكيس ما كان سكوع العليي قدوك كواد وكو ليجيا أما وقت بدن جليي إنه كعليا هذا الكيس هرا وجتجي ودوبي كوبي طبعا كي ربيع الأول هبين كي كوبي طبعا كربيع الأول ليلة الجمعة كن يافر بقولي كوبي يافرتنكا وقلت على قال إنه جواب النقطة طلب كي ضد عن البضي qodobkaas uu ku celceliyay waqti badan baanu ka qaaday waxaan ahayd in maadaama hore uu intan u sheegay inaan waxba ku soo celin waayo waqtigu waa thamiin juz'iye kasta waqtiga kamid qofku wax looga baahiyo inuu wax cusub keeno intii hore aan ku celcelin hadduu wax ku soo daray wuxuu ku soo daray qodobo uu yiri waxay sabab u yihiin diidmada aan diiday oo ilaa 4 qodob ah in aan Dr. Faysal la doodaynin qodobka labaad ee hadalkiisan ku jira ama kilibkiisan ku jiray si wacan looga dheehan karayo in badan oo kamida saacada ay 3 daqiiqana qaatay tuham fara badan iyo waxyaabo badan oo aniga igu ganayo asaliib kala duwan oo igu ganayo mar been buu igu ganay oo waqtiyo kala duwan soo celceliyay mar tanaaqud iyo isbaranbarin buu igu ganay mar wuxuu igu ganay ikhlaas darro mar wuxuu igu ganay iskibrin mar wuxuu igu ganay isdiraa in dadka ku sameeyo iyo tahqiir tuham aan loo meeldayin oo fara badan ayuu sii daayay qodobka saddexaad ee ka muuqdayaduna waxay ahayd in kasto xagga dambe ay u badnayd wacdi waanigay soo jeedinayo oo wacdinayo qodobka afraad waxa ka muuqatay iyadana bariye iyo istictaaf wiiga dalbayo inaan joojiyo oo dadkan uu ku magacaabayo salafiyiinta ay uu leeyahay weerar baad ku haysaa inaan ka daayo oo waxyaabo kale aan ku mashquulo oo dadka kale aan radiyo oo nooc istictaaf oo xoogana waa ka muuqday waxa kale oo ku jiray su'aalo aniga ii soo wajahaya oo kala duwanaayo siyaabo kala duwan oo su'aal aniga ii weydiinay shantaas ayaa ugu muuqasho badnaa
waxa kale iska dhextaala iyo waxyaabo noocaas ah tikraar fara badan ayaana ka muuqday haddaan cajalada qiimeeyeen cajalada iyo shakhsiyada markaa fadhiday iyo xaaladda uu ku sugnaa waxa ka muuqday nooc inhizaamiye ah marka ma garanayo meesha ay kaga timid waxaan soo filayaa mas'aladii uu awoodi kara waayay inuu ku soo dhiirado inuu munaadaro u soo fadhiisto iyo shaaric isaga ku xeerano uu daqdi ka dareemay ayaa inhizaamiyada ku keenay shanta qodoban hadaba isdul taagi doona amtilana ka keeni doona qaarkood waa iska dulmaraya sida wacdiga oo kale inuu wacdiyay wacdiga waxaan ka leeyahay qoftii la wacdiyay waxa u furan inuu yiraahdo ilaahay haynagu anfaco qof oran karaya maxaa la wacdiyayna ma jiro laakiin waxaan leeyahay laba qodob ma tusaaleynayaa wacdigu adigana ha ku anfaco oo itihaamaadka aad muslimiinta tuhmaysay cajaladaadana ka buuxa waxaadan daliil u haysan ikhlaasku qalbigu dhaca ikhlaas darra iyo xaqiritaan iyo isdiraa iyo aad leedahay bal wacdiga adiguna iswacdi waana ku ognahay oo wacdiga mashhuur baad ku tahayo waxyaabaha aad ku caanbaxdayba wacdiga ka midoo mar hore aan tilmaamay oo risaale yar ama maqaal yar aan kugu radinayna alwaa'id almajruuha adaan kuula jeeday julli waxaad ku shuhrowday caanka ku noqotayna waa wacdiga marka horta iswacdi oo adigu naftaada ka bilow tawacdiga intaas ku dhaafaya tabariyada iyo istictaafkana iyadana waxaan kaga jawaabayaa waxba ha istictaafin imika markay xaaladii kululaatay in badan baan dhagihiinu ay ku soo dhacayeen aniga kaliya maahay majlisul cilmigu aydi lahaayeen masaa'ishan soo fariista markii ay weydowday ee hawsheedu ku soo jeesatay in aad tidhaahdaan istictaaf la timaadaan waxba idin tari mayse hawshu way soconaysaa insha allahu tacaala masaa'ishanna haddaad ka aamustaanna waa laga aamusi doonaa oo insha allahu tacaala waa sida khayrka badan in aad ka soo noqotaan wadadan aad marteen ee mugdiga aad dhufateen aad ka soo noqotaan oo magacan aad quruxda badan aad ku celcelinaysaa salafiya waxba idin tari maayo oo ummadda kama xigtaan salafinimada sheegashaduna maziye idin siin mayso xaqiiqana ka dhigi mayso ilaa aad ka soo noqonaysaan ama aad ka aamusaysaan hawshu way soconaysaa istictaafkuna waxba tari maayo saddexda kale ee soo haray haddaan dib ugu noqdo wax ka tilmaamo ugu horeyn afar qodob buu sheegay sheekh cabdullaahi barbaraawi uu ku diiday oo sabab uga dhigay inaanu aniga ila doodeynin takoowaad wuxuu ka dhigay oo uu yidhi ujeeddo gaar uu leeyahay ujeeddadaas oo ah caanbax inuu soo caanbaxo waxaa kaloo uu daliil uga sii dhigay arrinkaa maxaad aniga sida gaarka ay igu dalbatay iyadoo cid kale ay ka dalbatay halka dhowr waqfan ka oranaya qodobkaasoo cidda caanka ah iyo cidda ku caanbaxaysa in la isweydiiyaa waa muhiim waxaadna igu kalifaysaa horena waan u tilmaamay sheekh cabdullaahi barbaraawiyo aan ku iri waxaad noqotay ashama akhin fii xisbihi tii baad weli wadaa dadkana waxaad u dhibgelinaysaa waxay taxaashi ka samayn lahaayeen oo ka tarafuci lahaayeen inay mustawaha u soo degaan oo sidaa u hadlaan baad ku qasbaysaa cabdullaahi barbaraawi haddii dib aan u milicsado taariikhdiisa sidaan ku hayo horta wuxuu iska dhigayaa kaanamaa inuu iga weyn yahay oo nin iga weynoo faariq cumriyo dheer uu noo dhexeeyo sheekh cabdullaahi barbaraawi sida uu qirtay waxaanu kala weynahay waa wax aad u yar ama waa sanad ama waa 2 sanadood hadday ugu badato 2 sanadood iyo badh marka horta wax cumriya aniga sheekh cabdullaahi barbaraawi igama weyna xagga talabkana sheekh cabdullaahi barbaraawi 29 buu sheegay inuu ka tagay wadanka oo uu Yemen tagay isagoo cumrigiisu waliba uu 20 ka yar yahay taasi waxay khilaafsan tahay jaadadii ahlul cilmigu samayn jireen ee cilmiga ahlu baladkooda ay marka hore xasilin jireen ka bacdi ay meel kale u intiqaali jireen waxa muuqata adoo taxsiil badan lahayn in aad Yemen u intiqaashay Yemen marka tagtay 4 sanadood iyo waxaan dhaamin bad soo joogtay oo waliba meel kala duwan aad marmartay haday tahay damaaj in kastoo ragga qaarkood oo reer damaaj ay inkirayaan inaad sheekh muqbil arday u ahayd iyo meel kale 4 sanadood qof maqnaa oo intaas oo meelood u kala kickiitimay
taxsiilkiisa waa la garanayaa markaad soo noqotayna halkaad cilmiga ka dalbi lahayd ee ahlul cilmigii beledka aad cilmi ka qaadan lahayd ayaad waxaad isku qaaday laba qodob oo aan isqaban karin oo ah inaad wacdiga aad ku shuhrowdo oo dadka aad wacdido iyadoo shay xasana uu yahay laakiin wacaada waxa qaaliban ay ku dhacaan akhtaa'aad iyo aad u fara badan ahlul cilmiguna way tanbiihiyaan wacaada iyo qisaasta inaan warkooda aad loo qaadan waxaad kaloo ku aanbaxday inaad khalqiga ilaahay ee saalixiin iyo cubaad iyo nooc walba leh inaad carabkaaga ku jaraaxayso ayaad ku aanbaxday idan labada qodob ee aad ku aanbaxday hadday wax kuu tarayaan oo ay caan kuu tahay qaado hadday aniga u timaado anigu bixamdillaahi tacaala adaa ii qiraya sheekh cabdikariim xasan xoosh inaan cilmiga ka qaatay iyo culimmada kale la midka ee ahlulbeledka ah iyo macaahidda sharciga ee wadanka ku yaala ama macadkii ceergaaba ha noqoto ama waxa weeye ka bacdi markii aanu nimid ha noqoto markii dambana ilaahay nagu irsaaqay inaan tagnay jaamica alislaamiya oo akaabir alculamaa 14 sannadood aanu ka faa'iideysanay ama kuwa jaamacadda macalinka ha noqdo ama qaar ka baxsana marka labadeena tawkeeba doonaya ka kale inuu ku shuhroobo taasi waxa weeye dadkan uga tagaya adiguna waad ogtahay dadkana waan uga tagaya waxna ku tiigaali maayo oo mana jeceli qofku inuu da ka sheekeeyo wuxuu yahay laakiin sidaan tilmaamay Cabdulaahi Barbaraawi duldulkiisa ayaa wax badan kugu khasbaya qodobka labaad wuxuu tilmaamay kuma qanacsani aqoon iyo khibrad inuu u leeyahay waxaan filayaa aqoonta uu ogyahay Cabdulaahi Barbaraawi aqoonta mustawa cilmiga meeshuu ka joogay anigu meeshan ka joogay malaa wuxuu u jeedaa ururadan ay eriyanayaan iyagu ayaadan aqoon u lahayn waana sida hadalladooda inta badan ay ku celceliyaan oo yiraahdaan nimankan annaga idinka aqoon badan taasi biikhtisaar waxay daliil u tahay anigu kamaba hadlin baniman isaga ku cararaya niman iyo kooxo muayana iyo dad uu ka laalaaday isaga ku cararaya anigu mas'ala cilmiyaan kala hadlay mas'ala cilmiya hadhow baa loo iman doonaa mas'alada marka meel la saaro sidaan majaalis badan ku cadeeyay ayaa loo iman doonaa hebel iyo طائفة معين iyagu maxaa ku tabaqmaya xukunkana ku tabaqmaya mise kuma tabaqmayo hadhow baa loo imanaya marka taasi markeeda hal la gaaro haddaad adigu iga aqoon badan tahay dawaa'iftan joogay haddaan anigu kaaga aqoon badanahay ayadoo aan ognahay itixaadka carruurtii yareeyada itixaadku hayeen iyo culimada itixaadku hayeen aad ka mid ahayd oo laftaadu wax khibrad iyo aqoona wax lagu sheegay mooye aanay jirin taana waan ognahay qodobka saddexaad wuxuu ka dhigay waxa aan la isla xadidin oo aan anaga Dr. Faysal waliba isla fahamsanayn meesha iyo mas'alada laga doodayo way xadidantay hadalkayga horena uu ku jiray mas'alan ka dalbaday kaliya sababtan adiga kaaga dalbadayna ina waan tilmaami doonaa mas'alan dalbaday way xadidantahay goobtuna dhibaato male laakiin goobtu waxay farac ka tahay markaad ogolaato dooda aan dalbaday iyo mas'alada aan dalbaday markaad ogolaato ayay farac waxay ka noqonaysaa goobta iyo meesha waxa kale oo ku daray xanaaq baa ka muuqday kilibkii oo soo duubay Dr. Faysal sida daraadeed maadaama uu sida u xanaaqsan yahay hadhow talow yaa dabdin karaya horta in la xanaaqo marka xaq la sheegayo hadiga nabiga kamita alayhi salatu wassalam wa uslub min asalibihi hadithka muslim hadith jabir fi sahih muslim kusugan baana daliil ah nabigu inuu caaroon jiray in codkiisu kor noqon jiray in wajigiisu isbedeli jiray marka waa uslub asalibta kamida daliilna uma aha qofku haduu sidaa sameeyo inaan bimaana xaq leys weydiin karin iyadoo la oran karayo uslubka aan maray waa uslub الشيخ عبد الله بربراوي كوحديس مناسب جدا وانا تلمامي مجالس وران كو تلمامي hadaba shanta qodob hal afarta qodob ee uu sheegay waxaan tilmaamayaa inta aanan ka bixin qodobka dooda ku xiran iyo qaabkan uu dalbay dadku waxay wada ogaayeen dib hadii loo noqdana la helaya anigu Cabdulaahi Barbaraawi jalsadaas iyo talabka dooda muayyanka mooyee doodihii dalabaadkii ka horeeyay Cabdulaahi Barbaraawi gooni uma dalban وانا الله نقول كذا
masalada marka la weydiiyay waxaan oran jiray cajaladahana ku duuban cidda sidaasi ka duwan khilaafsanay gogol cilmiyaha ku soo dhawaato waa la helayaa dhammaan meelaha aan ka yidhi ama ha noqoto burco masaajidka masjidul madiina ama ha noqoto masjidul nuur ama ha noqoto hargeysa ama ha noqoto wajaale ama ha noqoto gabiley cabdulaahi barbaraawi iyo qeyrkii toona midna ma xadidi jirin waxaan oran jiray cidda arrinka diyaarka oo sidaasi ka duwan qabtaa gogol cilmiyaha ku soo dhawaato cabdulaahi barbaraawi hadaba goormaan xadiday cabdulaahi barbaraawi waxaan xadiday waana akthar min marna waan sheegay kelmadayda aan dooda ku yeelay waxay daba socotay tii wajaale adigu aad ka gashay ee aad mas'alada ka hadashay ee aad tiri dad baan ilaa aan fahamsanayn waxa la isku hayo oo waxa weeyaan jamaacada u yaqaana masaajid kursi la dhigay iyo waxyaabo noocaas ah talabkaygu taasuu daba socday maadaama qofkii ugu dambeeyay ka hadlay adigu aad ahayd maadaama aadna tacriidisay oo aadna tilmaamtay sidaa daraadeed baan aniguna idhi ninkii hadlayay ee maalin dhawey wajaale sidaa ka lahaa dood cilmiyaha u soo dhawaado anigu wax gaaro adiga ii kaa saaran imikana waan cadaynayaa horena waan u tilmaamay wax iga ka gaaro adiga ka saaran ma jiraan laakiin maadaama ninkii ugu dambeeyay aad tahay ninka ugu hadalka badan ee ugu maqiiqan qadiyadana aad tahay in lagu tilmaamo inaad dood soo diyaar garowdo sababta loo yirina anigoo waliba sheegay inaadan mustacid u noqon karin inaad dood igu soo hor fadhiisatana waan sheegi doonaa idan marka qadiyada arrinka uu ka dhaliyay ah Dr. Faisal cid buu doonayaa wax jira maaha cid gaara ma doonayo kilibadaydii horena waa loo noqon karaa iyo majaalistii aan tilmaamay imikana anigaaba cadaynayaba aniga cadaynaya cidda mas'aladan dadka ku tabdiicisan u jeeda cidda mas'aladan dadka ku tabdiicisa ee sida aan u taasiilinay si ka duwan qabtaa ama fardi ha ku yimaadaan ama hayso soo bahaystaan cidda noocaas waa la garanaya iyaguna way isgaranayaan taana intaasan ka yidhi wuxuu tilmaamay oo ku soo celiyay oo suwarka uu ka qaatay uu leeyahay igu tuhmaya been inaan sheegay waxa uu tilmaamay in hore la iga dalbaday kadibna hadalkaygaas habeenka aan ka hadlay aan idin labada nin waan garanayaa ninka kalena ma garanayo halkaana uu ka soo dhex saaray inaan ilaaway xagga horena aan jasmiyay waxa leeyahay waan jasminayaa warkaasi war jira ma cidiga dalbatay ma jirto laakiin waxa aan ka tawarucay waxa weeye ninna waan gartay masdarka kadibkan cid faafisay waan gartay ninka kale uu sheegayana ma garan cid aan kadibka u tiirinaya ma garan ee anigu malihi kanna waan garanayaa kanna waan ka shakisana in laygu yiri inaan laygu oran anigu sidaa uma jeedo labada midna ma dhicin laakiin midna waxaan garanayaa cidii sababta u ahayd warkan in la faafiyo ee sameeyay midna ma garanayo cidda samaysay ee aqraanta lagu sheegayo taana intaas ayaan ku dhaafayaa waxa kale oo tilmaamay in aan iyaga ku iri waxa tihiin idinka mooye cidda kale oo dhani ummadda ilaa kacaamada ah waad tadliilinaysaan oo waxaad ka aaminsantihiin inay dad khariban oo khaldan oo ahlu bidca ay yihiin ووجه إلى أن أقول سيدا وجهدين هذا الكيقون هذا النبي معها عليه الصلاة والسلام هذا الرسول وكلام معها وورد أي تاي وورد معصوم بالآدم بانه أنا اعتراف في كرا إن هدي إطلاق ميل معين يقدر عي أنا إطلاق وجهدين وحنوجه عدة تضليلين سواء قرأ وقرأ إنسان ضدك الدعاء قيبتنا تكون شرتان الدعوة ضدك إذا كل شر الدعوة مساجدada leh ee maraakista leh ee macaahidda leh idinka mooye inta kale waa tadliilinaysaan inta kale taanu ugu jeedaa waa tan noocaasa taana iskamaan oran de waxaad ogtihiin siiradiina marka dib loo galo qaabka dadka ula tacaamushaan Sheekh Ahmed Ciid cajaladii uu duubay ee mash'uumka ahayd ee meel walba ka dhacday 96kii ee uu tilmaamayay ee uu lahaa halkaasaanu tagnay halkaasaanu qabsanay cadowgii waanu ka adkaanay macnaha looga jeedo ayaad uga jeedaan iyo cidda cadowga ku tilmaamaysaan waa la garanayaa
هذا الكادليد هاي أنا وحنا أمسنا يقف كستو كتاب كيا سنة على فهم سلف الأمة إنه حق سجية هاي وكلمة حقوي لكن تطبيق على اسكو هايستان قفك أنك عليه الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أيان أمسنا dad kan aad eriyanaysaan qaar kood baa nasgareeyo ku qoray kutubtooda iyo manshuuraadkooda ku qoray inay i'tiqaadsan yihiin ama daliil ka dhiganayaan kitaabka iyo sunnada ala fahmi salaf umma hadana tabdiicinaysaan waxa ku tabdiicinaysaan mas'ala aydan xujo u haysan oo xujana aydan u sheegin hadalkayga aan leeyahay ee aad ka soo saartay inaan been sheegayo ee aan idinku leeyahay xujo ma haysataan waan ku celinayaa xujo ma haysataan sidaan u haysanna fadhiyadii hore ayaan ku cadeeyay taadalka igu laasimisay aad igu soo celisay su'aasha ii weydiisay adoo su'aashii aan ku weydiiyay aan ka jawaabin ee adigu ma waxaad aaminsan tahay dadka oo dhani inay xaq wada taagan yihiin magacayna aad sheegtay ma anigu ma aaminsani dadku qaar khaldanna way leeyihiin qaar saxsanna way leeyihiin laakiin miisaanku adiga ma aha miisaanku waa kitaabka iyo sunnada ayaa wax lagu miisaamaa marka waxaad kugu haystaa ma aha dad khaldan oo khaladkoodu saxsan yahay baa takhtiaysa kugu ma haysto ee waxaan kugu haystaa cid aadan xujo takhtiadooda u haysan iyo tabdiicooda ayaa tabdiicisay halka ka caradi su'aalaha tawaa'iftaadii weydiisayna waad ogtahay tawaa'ifta munxarifiinta ummadda aktarkood islaamiyeen inay munxarifiin yihiin ama shabaab leh ama daacish leh ama غيرkood leh inay munxarifiin yihiin oo khawaarij yihiin waan ogahay ama shabaab leh inkasta oo Dr. Uthman Macallin ومجلس ديدي إن لغو حكومة شباب كخوارج لغو حكومة تاسنا أي شرتي لكن أنا أقول سؤال توصل كويدي لكن وكما جوابين خطأ أنا وحقه قف كيات سؤال ويدي سؤال كلادي كويدي سواء تادي كجوابين أنا ما قاعد كويدي وحكوري وزير كأوقافة الشيخ خليل عبد الله مسألة في بعد كام سنة مسألة كما أهم سنة كما تجوابين waad ka dulbooday ana imka kugu soo celinayay anu tayday waaniga sida cad kaaga jawaabay bal ka jawaab culimadan reer Hargeysa meel kale ba ha tagin ama reer Soomaaliland ka soo bilow laascaanood ee ummaddu ay u taqaano culimo u taqaano Sheekh Abdinaasir Xaaji Axmed Soomar Sheekh Cali Warsame iyo rag la midka reer Burco soo tag Hargeysa Sheekh Dirir Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun qaamaadka cilmiga ee ummaddu ay u taqaano inay yihiin ahlul cilmi ay u taqaano bal adigu waxaad ka aaminsan tahay ku soo dhiiro ka sheeg ama ardaydaada ka dhex sheeg ama mala ay dadka u sheeg way badan yihiin culimada waa ka misaal weyn inta kaliya ma ay culimadu way fara badan yihiin haddaanu imaado qodobkan waa amsilada badan ka bixiyay oo leeyahay tanaaqud baad ku dhacday ama uu ka laaziminayo tanaaqud uu markii hore iftiraaday yani gariibka Sheekh Abdullah Barbaraawi wuxuu iftiraadaya markii hore tanaaqud inuu jiro haddana tanaaqudkiiba wuxuu ka laaziminayaa inuu kadib yahay waa usluub sayyi أولا هرت تناقض كإنتارن سوين إنتارن تناقض كل شيء هرت سوين تناقض يعني ومركل بعده تناقض كاسي إنه كذب يهاي وكذب كلازم يو ينوى اللازم واللازم كلاسما قبطه وقفك واحد لقى يا بيسوق عن سوقين أو هذا كان كتنبه سنين إنه هذا دعضبع إن الله هذا أو إسبران برينكر أما الظاهر كود إسبران برينكر إن لقى مقله marka hadaa tiraado been buu sheegay adigoon hubsan waxa weeye iyaduna waa fujuur fi khusuma weeye bal hadaan taa kugu laazimay adiga oo sida aad sameynaysa adiga aan kugu sameeyo ma iltizaamaysa ma aqbalaysa waxa tiri tusaale waaxid ka bixinaya hadalkaagii tanaaqud waaxidan tusaale u bixinaya intaas oo tanaaqud ay ku jireen waxa tiri Dr. Faisal waxaan ka dalbanayaa inuu cadeeyo inuu qolyahan aad salafiyada u taqaano inuu ka digi jiray ama tilmaami jiray ama akhtaadooda uu tilmaami jiray meesha aad ku sheegtay ama kitaabka aad ku qortay ama darsi cajalada aad ku duubtay sheeg oo aad bimacnaadeed hay ma jiro halkaas sidaas aad u tiri mar kale hadana
daqiiqada 3 kontonaad hadalkaaga iyo 4 kontonaad waxa tiri waxaan ogahay inaad in badan ka digto oo macaahidda iyo maraakisda iyo aad kaga digto salafiyiinta hadaa dabeenta hadalka ku qabto kuulaada waa tanaaquday oo beenaala tahay ku farax gelinaya hadaan bal suura kale ku soo qabto mar waxa tiri urur ma tihid waxa way urur baa tahay oo ururkan jamaacatul i'tisaam baad ka socotaa xagooda ayaa tiri marna waxa tiri cid ma tashido kaliya baa iska socda bal labadaana wax dhex waxaad kaloo tiri bal hadaan nujaari kama taqul hadaan mujaaraad ku sameeyna sida aad sameeynaysa Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi oo anagu ma sameeyna noocaas oo kale ma nahine waxa tiri Dr. Faysal wuxuu yiri Abdullaahi Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi baa yiri waa yuxshar naas duha Dr. Faysal wuxuu yiri ama duha la soo xaadiriyo ama habeen la soo xaadiriyo hadaan ku ilaado bal ka war Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi hadalkaasi waa been anigu habeen ma oranay casran baan yiri hadaan ku ilaado ka war kooran maayo sabq lisan bashar baa tahay kuma oranay laakiin waxa soo kale inta urursato inta inaad tiraahdo been buu sheegay tanaaqud buu sameeyay waa kadib ila ma hunaalika waxay noqonaysaa inaad adiga laftaadu aad isku xukunto ila tanaaqud iyo kadib aad ku dhacday laakiin naxnu natarafacu an mithli hada tanaaqudaadka uu igu sheegay hadaan wax kamid ka tusaaleeyo waxa uu yiri waxa aad tiri anigu Cabdullaahi kaliya la doodaya adigaan ku doonaya haddana waxaad aniga igu tiri Cabdullaahi cid buu doonaya cid buu ku socdaa hadalkaas waxaan cadeynaya wax tanaaqudeen aanu ku jirin si waxaan ugu jirin anigu markaan ku leeyahay adaan ku doonaya sabab bay lahayd sabab baa keentay oo hadalkaygu wuxuu daba socday hadal adigu tiri adigaan doonaya inaan ku istaajiyo oo hadalkaygu hadal buu daba socday taasi waa dhinaca kale wuxuu kale jawaab u ahaa marka tiri 14 sanadood baan ka hadlayay cidina ima soo jawaabin baan jawaab waxaan kaaga dhigay 14 sano ka hor aniga ima dalban laakiin anigu anaa ku dalbaday marka jawaab bay wahaydee anigu ma oran kumana xirin mana shartisan mana oran Cabdullaahi mooyee cid kale aan la doodaya ma jirto laakiin taadu adigu way cadahay oo waxay ku cadahay intaan dood ka dalbaday mas'ala muhaddadana aan ka dalbaday ayaad waxaad samaysay mas'aladiina waa diiday waxaad tii masaa'il kale ha lagu soo daro anigii shakhsiyadeedina waa diiday waxaad tii qolyo kale ha lagu soo daro de markaa miyaana iska cadayn oo waadix ahayn inaadan aniga doonayna cid kale aad doonayso oo aadan mas'aladan in laga doodo aadan doonayn waxba ku tarimaysa waxaan hadalkayga ku daray soo raac iyaga aniga ciidama soo dirsan cidina ima oran Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi la soo dood anigoo kamida culimada ku dalbaday oo ku yiri ila dood waana hadal baanay daba socotay mas'ala muhaddadana ku ka dalbaday intiiba waad ka dulboodo meel kale aad isku qaaday marka halka tanaaqud kuma jiro waxaad kaloo tanaaqud ku sheegtay waxaad tiri awqaafta markaan soo jeediyaan iri awqaaftu hadna kala dhex gasho iyo beerta xorriyada iyo waxyaabaha la midka aan sheegay haddana Dr. Faysal wuu diidayo waxa weeyaan arrinkii anigu igu dhaleeceeyay sax waan kugu dhaleecaynaya waxaan kugu dhaleecaynaya malxad kaana inaad fahantaa muhiima ama hadaadan fahmaynin lagu fahamsiiyo waxay aniga khalad igu noqon lahayd marka aad tiraahdo mas'aladii iyo Dr. Faysal doodiisi waan aqbalay hadaan wax kala keeno aniga khalad kale laakiin labadii midna kama hayo waxaan anigu ku dirsan oo aan ka dalban oo cid kale aanay ku weydiisan ayaa tagtay de marka in laga fahmo ama ay tahay xaqiiqadu in aad daadafaynayso doodii oo aadan doonayn soo hor fariisato way iska cadahay waayo wax muhaddada laga dalbaday qof muhaddada ka dalbaday oo aan ku yiri anigu cidna uma hadlayeen mas'ala cilmiyan u hadlaya taasna wax tanaaqud kuma jiraan waxaad tilmaamtay inaan ku
كن سنوات هدان جيران وكسور فريسانين وأتكون على علسان مغيب كاد وقتها إلى ميال لجوا وحيوداي وحاسوا هذا الآن طالب العلم كوهادلين لكن تستلداق أو بدل وحويه لما قضب قرما ديقا قوسطي وقضب كلابادنا حدا بدوقتها إن أنا صور فريسانين محادقة طلبانيسا لما أصاوح اللي استلتهاي كراه كهوري وحكا قوسطي انتي أنكو أقانية المسائشة كوالي هالليني تيما كأعد اختزالي سي أنا قاعد واحد قلت لي شيخ عبد الله بربراويو أدي قلت إلهي كبقو أنا واحد كلاهي أديقون إلهي كبقو waxaad ku soo ururisay jalsadii dheerayd ee dhexmartay waxaan ku yiri maxay iska kii bedelay masalada iska kaaya bedeshay oo dadka ma u sheega haaya u sheeg wallahi baanay sida ahayn waad noogtay inaan sida ahayn mas'aladan lafteeda inuu ka doodnay taasiilkeeda ma ila aaminsan tahay baan ku yiri waad ka wareegaalaysato i'tisaam baad u boodaa tiri i'tisaam xukunkeedu waa maxay oo aad ugu celcelisay markaan ku yiri i'tisaam waa ahlu sunnana waad baxsatay oo daaqadaad iska furtay marka usluubkaaga iyo arrinkaaga markaan eegay iyo mas'aladan bidaacadaadu intay leeg tahay ayaan ogaaday ama aan ku qancay inaadan soo hor fadhiisanaynin haddaba maxaa faa'iido ku jirta Sheikh Abdullah Barbaraawi malaa wuxuu doonayaa inuu duruus u dhigo ku saabsan qadaayaadkan faa'iidooyinka la doonayo in lagu taxqiijiyo munaadaradu ma aha qofkan kula munaadaroonaya inuu qanco kaliya ma aha adigoo og inaanu qancaynin ayaad u baahan tahay inaad la fadhiisato la doodo maxaad ula doodaysaa koow inaad ifhaamiso oo xujadiisan iyo waxaan uu sito inaad ka kala daadiso ee uu xujo ku sheegayo iyo cidda uu sirayo ee uu uga dhigay inuu xujo haysto inaad cawarka xujo la'aantiisa aad u muujiso waana mataalib muhiima markaan leeyahay ku soo dhawow maa'idada cilmiga in aadan ku soo dhawaanayna aan ogahay ujeedadaydu waxa weeye cajzigaaga inaan muujiyo si aadan mas'aladan aadan mar dambe ugu celcelin dadkana aadan ugu dhibin marka faa'iido iyo malxad fiican ayaa ku jira waxa kale oo tilmaamay Sheikh Abdullah Barbaraawi waxyaabihii uu aniga kadibka igu ganayay markuu qadiyada ka waramayay wuxuu yiri waxaad sheegtay 97 iyo 96 labadaba waad sheegtay inaad qadaayaadkan ka hadlaysay yaase kuugu daliila 96 kiinaan ama 97 kiina wuxuu kala soo baxay inaan been sheegayo waa gariib يعني إن إلى لحية سجاشن كيبا أما تضبيط سجاشن كيبا أحيد والتقريب التحديد معها تقريبي وهي تحديد معها إن أرنتني تشرتي محاك وجود دليلنا وحتسي وضع أرنكيوم بتسي وضع كوري أشأم أخ في قومه وفي حزبه ده واحد دون يسعينا قصي درا أنت شايعين كبضن لكن واحد كلها هاي أدونا هرجيسات كنا ولا نبرع عن كنا ولا reer burco weydii oo qolada reer sunna weydii oo Sheikh Abdi Kariim weydii oo waxaad waliba ka soo idan qaadataa jalasaadkii gaarka ahaayeen dhixmari jiray qaarkood uu sheekhu iga dalbaday in aanan faafin inuu ii idmo diin baa aniga qabanayso faafin maayo kuwa gaarka ah hadii kale ka joog waxaan filayaa inta aan imika sheegay inay wadaadadii iyo kooxdaadii dibsadka ay dibsadeen inay dareemi doonaan hadalkayga aan ku yiri ashama akhin fi xisbihi baatay oo dib ay bari ka ahaayeen fi ma'man kaga sugnaayeen inaad sabab ugu noqotay tiibaad imikana sii wada waxaad kaloo sheegtay qolada reer burco ayaa tiri iyaga aniga agtayda ka run waxa weeye run badan labadooda markay noqoto Dr. Faysal iyo iyaga waayo iyaga been kuma tijaabin oo hadalka تعريض كجرا دكتور فيصل إسقى بين بنك تجابي أبشر يا شيخ بربراوي أبشر واحد لكم أنت تجابين تيدا إلى مبات كينين بو واحد بين عاد يقول تجابي سي مبات كينين وحيابها اللوازم تيا وحاسه تنا كل شيء قدونه بل كب وحوي هدية قاضي واحد دكتور الشيخ عبد الله بربراوي وفرقي بشي سفر aan ka sheekay hore uga waramay
masjidu hijra saddexdii cisho soconayay habeenkii koowaad lagu qabtay waa kii hore maaha shirkii dambe weynaaye iyadu wax badan ay soo baxeen kii hore ee safar dhacay ee habeenkii hore lagu qabtay markasul ihsaan bacda al-maghrib ila bacda al-isha iyo kadib subaxdiina lagu qabtay masjidu hijra subaxdii dambe dalxiis hotelka dalxiis aynu fadhiisanay iyo waan ka shakisanahay labada ku ahaa waayo laba hodeel isu dhow hadwanaag iyo dalxiis labada mid ahaan buu ahaa mid saddexaad ma ahayn aynu fadhiisanay ee qaraaraadka la siyaaqaynay oo waliba maalinta bayaan la doonayay laga soo saaro qadaayaadkii kalshaale iyo fitankii ka dhacay in halka la isweydiiyay qaraaraad ma ka dhignaayo ma laga soo saaraa damaaj iyo Yahya al-Hajuri iyo dhalinyarada ka timaada ma ka dignaa mise kama digno oo adiga iyo ragaad ku jirtay aad mutaxammis u ahaydeen hal laga digo acyaantooda hal laga digo oo markas ku damaaj hal laga digo oo atbaacda Sheekh Yahya al-Hajuri hal laga digo waliba waxaad gashanayd khamiis kafeeya baad gashanayd iyo koofiyad cad waadii sawirantay oo waliba aad ka caafadhiisanaysay aad lahayd nimanka hal laga digo rag kalena ay kugu raacayeen iyadoo qisadaasi dhacday markii Yahya al-Hajuri warkaasi uu gaaray dariiqo dooraba ku gaaray in saaxiibada kuwan aad leedahay been kuma tijaabin ay warqad qoreen tawqiicyadoodii iyo saxiixyadoodii ku yaaleen oo la hayo ee Yahya al-Hajuri ay u qoreen u direen ay leeyihiin Yahya adiga iyo markaskaaga iyo atbaacdaada fadhiga iyo ka hor iyo kadib iyo gudihiisa midna waxa weeye laguma soo hadal qaadin ku bishaaraysta ta kadibka sariixa ah adaa ilaahay halka gaarsiiyay ku bishaarayso waxaad kale ku bishaaraysataa saaxiibadaadan aad koolkoolinaysa aad leedahay waana shay dabiici ah isku ururbaatihiin oo waa xisbigaagana waa arkaanta lagu yaqaan taxazubka madmuumka ah in li ajli al-hizb been loo sheego in li ajli al-hizb la isu amaano waa shay dabiici oo la yaqaan waxaad ogtahay Sheekh Rabi' al-Madkhali jalsadii adiga uu kugu yiri adoo fadhiya uu kugu yiri ya Barbarawi tub ila Allah anta takdhibu fi haram Allah ulama waaweyn ayaa kugu xukunto kula beenaanatay waliba fi haram Allah في بيت الله تاوح كده هذا لا سو تاغان waxa weey taad wax isku kakabtay ee lawaazim aad tiri been buu sheegaya kuwa kalena amaanay oo yiri waxa weey maxay haytay ma jarabtuhum ala al-kadhib bal kuwana wax ka dhex waxaad kala wax ka dhexdaa geedkii damaaj ku yaalay ay dhalinyarada reer damaaj sheegi jireen loo yaqaan shajaratu tawbati Ahmed Eid geedkii ma garanay xuutiyiintu imika inay gooyeen inuu yaalay balkaana wax ka dhex ee lagu xukumay leeyahay beenaala tahay beenta ka toobadkeen wal uhdatu ala man naqal anu damaajna ma tagin laakiin de waa shay musattara oo kutub lagu qoray kutubtaas oo waliba Sheekh Yahya al-Hajuri lagu qoray adina binashrihi wuxuu idma in la nashriyo baltaana ka jawaab waxa adigoo og iyo balaawida dhex fadhiya ayaa doonaysa inaad cid kale lawaazim tiraahdo waxa weeye maxay tahay beenay sheegeen mujmalka Sheekh Abdullah Barbarawi waxyaabahaas uu sheegay waxaan qabla al-khitam tilmaamaya oo iyadana uu taariidiyay oo leeyahay dadka kale inxiraafsan bamaad ka hadashid xujadaasi waa xuja qaasira oo dadka qaar kood ba hadaad cid mas'ala ay ku khaldan tahay ka hadasho ku oranaya oo dad waxa kale masaa'isha kale maxaa looga hadli waayay Sheekh Abdullah Barbarawi mala waxaad adigu aragtay maqasho un baa jira maad arag waxaan ka digayo ee ummadda aan ka hortaaganahay ee inxiraafaadka aqlaaniyada leh cilmaaniyada leh kufriyaadka leh tasawufka leh waxa soo dhan malaamad arag shiicada leh marka aad leedahay hadaan ku arkileen adigoo saas sameeyna waxaan oran lahayn sida ay sida de waaye orodo qanaad baan leeyahay YouTube ay waxa soo dhan ku jiraane oo website shakhsiya baan leeyahay bal orodo galo bal soo bad iyadoo daatadeedu xuja qaasira ay tahay xuja qaasira ay tahay waxaan ku soo khatimayaa Sheekh Abdullah Barbarawi wuxuu ku soo gunaanay hadalkiisa
horta inta ana gunaanadin anigu bashar baan aysan hore u sheegay kalaam kasto aan ku hadlo oo laazim baatil ka dhalanayo bari baan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugahay waana uga toobad keenaya waayo bashar baan ahay hadalka aan ku hadlaa macsuum ma aha laakiin wixii khaladkiisu ii cadaado culaysigu ma aha inaan iraado waan ku khaldamay laakiin illa imika waxa uu Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi sheegay waa ru'yada isaga ku jirta weeyii iyo sidoo isagu arkay xaqiiqada kama tarjumayso Cabdullaahi Barbaraawi sheegay dhinac waan kala qaatay oo wuxuu yiri clip damba ma soo duubi doono hawshiyaan waan ka aamusaya waxaan leeyahay alxamdulillah alladhi askataka an hadhihi almas'ala waxaan kaloo leeyahay alxamdulillah ala an wasalat الرسالة رسالتي مقصودكي أهيد إن مسألة لقى فريسيو إن أنقادني الحمد لله لا تتمنوا لقاء العدو مركا وأنا لقى في الله مر هذا إنتاسك فريسي سي والحمد لله إن عامرك حقاق كلقات لكن قار كلام مقيقا هذا يسوى قران وإن عدتم عدنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.